dood adag ayaa xilligan ka socota group WhatsApp oo ay ku jiraan midowga murashaxiinta mucaaradka ah ee madaxweynaha Soomaaliya sidoo kalena ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee waqtiga ka dhamaaday kuwaas oo ku jira xisbiyada mucaaradka ah xubnaha mucaaradka ayaa aad ugu kala aragti duwanaaday qaabkii looga hadli lahaa doorashadii maanta garab ka mid ah guddiga maamulaya doorashada gobolada waqooyi ee ku qabteen Dhacday Afisyooni iyo mid kale oo galabta ka dhacday isla Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno xildhibaan ah oo ka tirsan mucaaradka ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah murashaxa kaliya ee ka tirsan mucaaradka isla markaana soo dhaweeyay doorashadii halka dhinac ahayd ee maanta ka dhacday xerada Afisyooni Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa jawaab u waayay su'aal laga weydiiyay sababtii uu taageeray doorashadii maanta iyadoo ay muuqato in xubnaha mucaaradka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya ay soo saari doonaan warar gaar ah oo ku saabsan khilaafka ka taagan doorashada gobolada waqooyi ee Soomaaliya wararka aan ka helayno magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe ayaa sidoo kale waxay ku soo waramayaan in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay wadaan wada tashiyo ku saabsan sidii laga yeeli lahaa khilaafka hareeyay doorashada gobolada waqooyi ee Soomaaliya taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay oo la daalaa xal u helideeda RW Rooble madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hore u diidanaa qaabka u maamulaya RW Rooble xal u helida dooda ka taagan gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay soo saaraan baaq ku aadan in wada hadal lagu dhameeyo dooda hareysay guddiga maamulaya doorashada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee ka imaanaya gobolada waqooyi ee Somaliland gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Dr. Xasan Cali Nuur oo afalaqeeya arrimaha siyaasadda iyo aqoon-yahano kale ayaa sheegay in RW Rooble uu maanta ka leexday wadadii dhax-dhaxaadnimada sidoo kale baraha bulshada waxaa saacadii la soo dhaafay aad loogu hadalhayay in RW Rooble uu hormuud u noqday boobka doorashada Soomaaliya ee sanadka 2022 qoraal oo bartiisa Facebook soo saaray RW Maxamed Xuseen Rooble ayaa wuxuu ku taageeray doorashadii halka dhinac ahayd ee maanta ka dhacday Dhacday Afisyooni ee xeyndaabka xalane isagoo hore u amray qabashada doorashadan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo saraakiisha ammaanka ayaa goobjoog ahaa doorashadii maanta ee halka dhinac isku doorteen oo ka dhacday xerada Afisyooni ee ciidamada cirka Soomaaliya Rooble ayaa u muuqday inuu xigsaday dhinaca xukuumadda gaar ahaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo Villa Soomaaliya oo xiiso gaar u qabta in doorashada gobolada waqooyi uu maamulo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed si loo soo saaro xubno taabacsan Villa Soomaaliya maxaa ka dhalan kara tallaabada uu maanta qaaday ra'iisul wasaare Rooble waa su'aasha ugu badan ee la isweydiinayo